السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة جنال كينا كحرن وسلامنتين ملكستو دنو دافيدا كجوكتان kusoo dhawaada barnaamijkeena caawa iyo ciyaaraha inta badan barnaamijkan waxaa kaga bogataan qodobada waqti xadirka taagan sidoo kale barnaamijkeena kaga marno qeybaha dambe inaan kusoo qaadano wararka suuqa waqtigaas taagan intaan gudo gelin barnaamijka haddii taa markii kugu wari soo boqonaysa janaalka subscribe noo saar sidoo kale halowin inaa muuqaal kale noo saarto aan ku bilaawno qodobkeena kooda official saaxiibada qiimaha badan laacibka lagu magacaabo Thomas Muller ayaa kooxdiisa Bayern Munich heshiis cusub u saxiixay sidoo kale heshiiskan wuxuu gaarsiiyay June 2024 ayuu gaarsiiyay sodon laba jirkan qandaraaskiisa kaliya waxaa ka dhibna hal ciyaareed sidoo kale sanadka dambe 2023 ayuu dhici lahaa qandaraaskiisa sida daraaddeed hadda ninkan mustaqbalkiisa kooxdiisa Bayern Munich ayuu hibay ilaa June 2024 ayuu la joogi doonaa sidoo kale sodon laba jirkan hal ciyaareedkan kooxdiisa kubadda cagta Bayern Munich wuxuu dhilay laba gool ay shabaqa gaarsiiyay sidoo kalena 24 caaban uu sameeyay tartamada dhan sida daraaddeed hadda official ninkii ah Thomas Muller heshiis cusub ayuu saxiixay sidoo kale heshiiskiisa wuxuu ku eegaya June 2024 ayuu ku eegayay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa rabtay in laacibka lagu magacaabo Robert Lewandowski inay ka ceshto kooxda Barcelona sidaan ka warqabay ninkan heshiiskiisa wuxuu ku eegay xil ciyaareedka dambe laakiin asiga wuxuu rabaa xil ciyaareedka markuu soo dhamaado in naadiga ay fasaxdo laakiin Bayern waxay rabtaa in heshiis cusub ay ka saxiixdo oo 2 sano oo kastar ah inay ka qaadato laakiin ninkan saaxiibada qiimaha badan wali uu surugsan yahay in heshiis cusub uu qaato laakiin kooxda lagu magacaabo Bayern wuxuu ku adeegaysaa laacibkeeda weeraryahankeeda inaysan luminin dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan laacibka qalbada daafaca dhexe kaga dheelay kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka lagu magacaabo David Alaba ayaa markaan lagu soo diray squadka ka hortagi doona kooxda kubadda cagta Man City habeenka dhankaas ee Bernabeu lugta semifinalka labaad lagu dheeli doona dadka ka hortagi doona ayaa loo soo xushtay saaxiibada qiimaha badan sidaan ka warqabno David Alaba dhaawac ayaa soo gaaray kulanka ugu dambeeyay ee kooxdiisa ay la ciyaaraysay Man City lugta koowaad semifinal dhankaas Etihad lagu dheelay xitaa ninkan ciyaartooda dhameeyay way qaybta labaadna waa la bedelay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan Astorianka hadda waxa la leeyahay squadka ayaa lagu soo diray sidoo kale Carlo Ancelotti wuxuu rabaa ragga habeen dambe uu kaga hortagi doono Man City dhankaas ee Bernabeu inuu ka mid noqdo xitaa ninkan dhaawac soo gaaray lugta kulanka ugu dambeeyay kooxdiisa ay ka badisay kulanka ugu dambeeyay Los Blancos ay ciyaartay xitaa qayb muusan keeno kooxda Espanyol ay 4-0 Real Madrid ku xaqday sidoo kale sabtidaan ka soo gudubnay ayaa kulankaas dhankaas Bernabeu laga ciyaaray xitaa kooxda Los Blancos saaxiibada qiimaha badan waxay u dabal degtay liiga ku guuleysay waliba markay 35 ay qaaday kulankaasna ninka lagu magacaabo David Alaba uu ka maqnaa sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan Carlo Ancelotti hadda ninkan uu soo xishay sidoo kale squadkiisa ayuu ku soo darsaday sidoo kale waxa la leeyahay saaxiibada in Alaba waxa laga yaabaa in uu kursi keed ka soo fadhiisto sidoo kale Carlo Ancelotti waxa laga yaabaa labada daafac qalbada dhexna iskaga dheesay waa ragga kale Nacho Fernandes wiilka lagu magacaabo Eder Militao waxa laga yaabaa qalbada dhex daafaca inay haweendama ayaga hogaamiyaan sidoo kale waxa laga yaabaa ninka lagu magacaabo Alaba sidoo kale Eder Militao inay qalbada dhex daafaca haweendama ay hogaamiyaan laakiin hadda warka jir waxay squadka Real Madrid waxa lagu soo David Alaba sida daraaddeed waxa la leeyahay tababarka ugu dambeysay kooxda sameeyay qayb ayuu ka ahaa markaana saxaabta qiimaha badan soo qaadana wararka suuqa waqti xadirkan taagan majaladaha qorayana isla fiirin doonaa saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Everton ayaa la leeyahay 24 jirka weeraryahanka ka dhilo ninka lagu magacaabo Richarlison adduun lacageed gaaray 50 milyan ee dul dhigan Braziliankan sidaan ka warqabno Richarlison waa ninka hadda kooxdiisa Everton ka dhex muuqda inkastoo kooxda kubadda cagta Everton ay saaxiibada qiimaha badan xaalad culus dhexda kaga jirto sidoo kale kulanka ugu dambeeyay waxay ka badisay kooxda kubadda cagta Chelsea sida daraaddeed waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta Everton weeraryahanka Richarlison adduun lacageed gaaray 50 milyan ee dul dhigtay sidoo kale ninkan kooxda Real Madridna baad goob xogan ay ugu jirtaan sidoo kale saaxiibada qiimaha badan qodobada kale aan barnaamijkeena ku soo qaadanayna waxa kamid ah kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markaan xiiso waali u qabtay wiilka lagu magacaabo Lautaro Martinez kaasoo weeraryahanka u dheelay kooxda kubadda cagta Inter Milan 24 jirkan oo Argentineska saaxiibada qiimaha badan sanadihii ugu dambeeyay Gunners ayaa baad goob xogan ugu jirto sida daraaddeed waxa la leeyahay xil ciyaareedka markuu soo dhamaado waxay rabtaa in Martinez ay soo qaato kooxda kubadda cagta Arsenal sidoo kale ninkan ogaada saaxiibada qiimaha badan xil ciyaareed qurux badan ayuu bartan kaga jiray maadaama hadda sida shaac laga qaasado in 2-0 ee kooxdiisu u dheelay 17 gool ayuu shabaqa gaarsiiyay sidoo kale ninkan saaxiibada qiimaha badan Arsenal waxay rabtaa xil ciyaareedka dambe inay soo qaadaan saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta Wolves ayaa iibin doonta ninka qadka dhexe kaga dhilo ninka lagu magacaabo Ruben Neves xil ciyaareedka markuu dhamaado ay iibin doontaa sidoo kale ninkan kooxaha isku haysto waxa kamid ah Arsenal iyo Man United ay baad goob xogan kaga jiro laakiin waxa la leeyahay wiilkan rabitaankiisa kaliya Ruben Neves waa inuu ku biiro kooxda Barcelona markuu xil
ciyaareedkan soo dhamaad inuu halkaas aado kaliya ayuu doonayaa sida hadda la leeyahay qodobada kale aan soo qaadan karno wararka suuqa waxaa kamid ah saaxiibada qiimaha badan kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Napoli ayaa markaan rabtay inay ku far aragta daafac qalbada reex kaaga dhila ninka lagu magacaabo Kalidou Koulibaly sidoo kale weeraryahankeeda lagu magacaabo Victor Osimhen inay kooxdan saaxiibada qiimaha badan xishata ay rabtay xil ciyaareedkan markuu soo dhamaado sidaan ka warqabno ninka lagu magacaabo Victor Osimhen saaxiibada qiimaha badan waxa doondoonis xooggan ugu jiraan kooxaha ugu caansan horyaalka EPL-ka ka ciyaar hab ugu horeyso kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa wiilka rabtay inay gacanta ku soo dhigto ninka kale lagu magacaabo Kalidou Koulibaly asna saaxiibada qiimaha badan waxa baad goob xooggan ugu jiraan kooxaha Yurub ugu caansan sida PSG sidoo kale kooxo kalena baad goob xooggan ay ugu jiraan sida daraad waxa leeyahay saaxiibada qiimaha badan Kalidou Koulibaly wuxuu rabaa xil ciyaareedka markuu soo dhamaado inuu kooxda iskaga hayo laakiin waxa leeyahay Napoli labadaan in ma fasix doonto sidoo kale ninka lagu magacaabo Kalidou Koulibaly heshiis cusub ay ka saxiixi doontaan sidoo kale waxa leeyahay labadaan waa labadaan mustaqbalka Napoli ay rabto inay back up ay rabto inay kooxda ku duusho sida daraad waxa leeyahay Napoli sinaba kuma fasix doonto Kalidou Koulibaly sidoo kale weeraryahanka lagu magacaabo Victor Osimhen sida ay ku soo waramay shabakad loo yaqaan Sky in Italy وتكون سنتين صاحبة الدعوة الدعوتين مقال كان واحد الكاسين ودن برنامج كان عاوي يعيارها انت بدن برنامج كان هدي كدب احنا قندونا برنامج جوكتا وجنال كان كبيح دونا هذا جنال كان كحصبتا وحان سيح شمال لك عطنا انا سبسكرايب نوصارت هذا كمتها صاحبة هورنو للجوغي فضلا مقال كان شير لسي صاحب وناكس ادو كلا جنال كوغو بيران سدو كلا صاحبة قيمها بدن يالاga بقين مقال كان ان لا غير لاكت وحين ودير قلنيسا مقال كان وفافو ودد بدن قارسيو انت برنامج كان برنامج كل من سداس يا مان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته